waxaanu mar kale u digaynaa kuwa mar walba jecel boogihii barihii iyo sanadihii la soo dhaafay daqaradii dadkeena isgaarsiiyeen kuwa inay dhiijiyaan ay xogaan cid siyaasad marooqsi wax gaar ah ku qabsan kartaa ma jirto ee aanu badarkeena wada jir wada xadsano ajenda qarsoon baa jira waxaan lagu wada hadlayaa waxaan ahayn baa dhabtu tahay wali waxa igu jiray inay tuulo u jiro fartuna ii taagnaanayso oo mar walba aan fiirinayo la hebel balad fiirista wuxuu ku hadlo dadka dagaalka iyo colaadda ku naax xoolo ku hela magac inay ku helayaan aaminsan laakiin aan qabo saaxiib caadi iska dhig haddii ay jirto ciidan gaar awgeed doonaysa in Soomaaliya sidan ku sii jirto aan wada jir isaga qabano inta mas'uuliyiinta ka soo jeeda dhinacaan hadda aan fadhiyo nin walba damaca uu qabo ee siyaasadeed iyo 2016 isagu rajada uu ka qabo intuu meel dhigto ha ka hadlo priority-ga ha siiyo maxaa Soomaalida dan u ah waxaan rabaa mikrofoonka inaan ka sheego madaxweyne Shariif Xasan iyo madaxweyne Cabdiweli caadi iskama dhigin wali oo ugu horeyso ammaan darrada oo ballaaratay oo muddo badan soo martay in dalkeenii uu noqdo meel dhibaatada adduunka ku soo sameeyay hadda waxaa jirtay ajantii maanta lagaga hadlaya halkan lama aan socon hadaan bulshada rayidka laba qof oo kasta oo is ag fadhida inay isku soo jeensato oo dhoolaha cadeyso oo yiraahdaan saaxiib caadi iska dhig